السلام عليكم. حلقتنا وقيبتي لبعد 10 كيلو سوالف أو أحد الناونز. intaadan qaybtan daawna xaabsataa qaybtii ka horeysay inaad daawatid linkigan waxaa ka helaysaa qaybta hoose ee description-ka. nouns waxay u kala baxaan countable iyo uncountable nouns. sabuurta ka arkaynaa waxay ku kala duwan yihiin. marka nounsiga haysanaa waxay u kala baxaan countable iyo uncountable. countable waxa waaye can be counted, waxa waaye nounsiga la tirin karo. For example, a boy, wiil, waxa waaye wax la tirin karo. waxaa dhihi karnaa 1 boy, 2 boys, 3 boys, 5 boys, 10 boys. marka waa wax la tirin karo. midda labaad can be plural with s. waxaa laga dhigi karaa plural haddaan kusoo darno xarafka s. For example, girl, gabar, girls. s soo raacina marka waxay noqonayaan gabdho jamac. midda labaad haddaan tagno uncountable nouns, wuxuu dhahay can't be counted, marka lama tirin karo. For example, saliidda inta la soo qaado lama tirin karo. Number 2, usually can't be expressed in plural, marka plural lagama dhigi karo oo s lama soo raacin karo. Oil, saliidda, markas oil waaye, oils ma noqonayso, s lama soo raacin karo. inta example qoranayna oo ka mid ah countable nounsiga, inta waxaan qoranaynaa examples oo ka mid ah uncountable nouns. countable nouns maxaa noqon kara? sidaa sheegnay waxa way nounsiga ee la tirin karo. For example, marker, a marker, kan waxa 1 marker, 2 markers, 3 markers. marka a marker wuxuu noqon karaa countable nouns maadaama la tirin karo. marka for example, marker. noun kasta aad tirin kartid waxa waaye countable noun. midda labaad uncountable nouns. For example, waxa aad tirin karin waxaa ka mid ah rice, bariiska, marka waxa waaye uncountable noun. xalqadan intaas ay ku egtaa. waxaan rajeynaa casharkan inaad fahamteen. waxaan u balanahay xalqada soo socota insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.